subax aan boosaaso ka jarmaanay iyo safarkeenii tabinta rajada 20 sano marka aad sidoo kale safar galayso waxa laga maarmaan ah inaad iska hubiso gaariga aad ku safrayso si fiican iskaga fiiriso hubinta shidaalka gaariga iyo baarista ciladaha gaariga ku soo bixi kara intuu safarka ku jiro oo durawalku naga hubiyay kadib waxaan cagta saarnay laamiga weyn ee isku xira magaalada Boosaaso iyo gobolada dhexe ee Soomaaliya laakiin sama hilmaamin saacad kadib aan ku safri doono jidcada jay badan xogaa door ah hadii aan soconay waxaan gaarnay magaalada Kalabeer oo 60 kiiloomitir u jirta magaalada Boosaaso anagoo laamiga uga leexanay dhanka bidix oo ay naga xigtay jidcadaha loo maro gobolada bari iyo Raascaseer waa barqo wali cadceedu kulushahay kolka aan shaaga saarnay wadada bariga fog loo maro marka aad deegaanada laamiga ka fog u safrayso waxa ugu sahlan wadada Urcaleed oo gaariga intuu wada socon karo muddo 5 saacadood aan soconaynay isla markaana aan ku safraynay dhul u badan bancade aan dhir badan lahayn waxaanu gaarnay deegaan oo durawalku noo sii sheegay inaan ka sii qadeen doono inta aan deegaanka ku sugnayn waxay indhaheenu qabteen gawaari ay ku raran tahay dhuxul aad u tiro badan loona wado magaalooyinka waaweyn ee Puntland si loo iibiyo safarkeeni ayaan sii wadanay Timirshe Xamure Balwacato iyo Balliga oo halka laga xukumo deegaanada aan soo sheegnay ayaan sii dhaafnay xilli maalinkii bartagay waxaan soconaba waxaan casar gaabadkii gaarnay deegaanka Unuun ee degmada Qandala markii aan 9 saac soconaynay ayay cadceedii hoyatay habeennimadii 3 saac oo kamid ah ayaan jidcadaha rafka badan ku sii joognay waxaana hoodaa gaarnay 3dii habeennimo habeenkii hadii aan seexanay subaxdii ayaan hore u bilownay shaqadii aan u tagnay deegaanka anaga oo xog ka raadinay odayaasha deegaanka si guud iyo si gaar ah oo aan odayaasha deegaanka u aragnay waxaan helnay xogtii aan raadinaynay waxaana casarkii ku balanay halkii lagu qoday ceelka waxa kana la iska balaariyay waa oo gibina كيسر انت سافرت كم وين كيسر انت كم وين fuustadan sawirka korka looga duugay waxa ku aasan rajada boqolaal dadweyne ah oo ku nool deegaanka hooda iyo deegaanada hoostaga taas oo ahayd ceel riig ah in lagu qodo deegaankan ceelka riiga ah ay dadku xisugayeen in ka badan 50 sano waan isku qarnay kahor intaan la bilaabin qodista ceelka waxa bilowgay sanadkii 2022 deegaanka soo gaaray koox sahminaysa halka ceelka laga qodayo iyo qaabka loo qodayo waxaana sahankaas kharashkiisa bixiyay dadka deegaanka sahanka dib waxa bishii labaad bilowday wajigii koowaad ee qodista ceelka balse bilow uu socday waa uu dhimay dhamaan ceelkii iyadoo isla markaana la bilaabay wajigii labaad ee ceelka nasiib darro isna sidii oo kale ayuu u dhimay bilihii 6 ilaa bishii 10aad oo si joogto ah u socotay qodista ceelka ugu dambeyntii waxa lagu guuleystay in deegaanka hooda laga helo ceel biyo leh kaas oo kaafin kara baahiyaha biyo la'aaneed ee ka jira deegaanka hooda iyo deegaanada ku tiirsan hadda waxa la soo gabagabeeyay dhamaan shaqadii ceelka oo iskugu jirtay qodis tijaabin iyo dhismaha ceelka la qoday dhamaan shaqaalihii ceelkuna waxa ay si buuxda u soo afjareen shaqadii qodista ceelka waxa ayna sheegeen in hadda loo baahan yahay qalabkii biyaha magaalada lagu gaarsiin lahaa odayaasha deegaanka oo arrintan ka warbixiyay ayaa wasaaradda biyaha Puntland u sheegay in ceelku uu taagan yahay halkii ay uga tageen una baahan yihiin dadka deegaanka rajada 20 sano ay naawilayeen inay helaan isla markaana aan si buuxda loo dhameystirin 2022 waxa noo yimi qolo ay soo dirday qoladan wakaalada biyaha kambaniga waxa loo jeeday in Xaaji Faarax halka magaalada agteeda buu yimi ceel baa la qoday markii ceelku horeysay 224 la marayay baa birihii ku go'een waa laga tagay haddana mid labaad baa la bilaabay markii adigu 7 u marayay buu haddana labada ceel isu dumeen waa laga tagay ceel kale oo 10 mitir baa haddana la bilaabay markii la kaysimay oo hawshii wax yar ka dhiman tahay baa kaysaradii ku go'een ceelkaas kambanigaas saasay hawshiisa noqotay
waxay haddana qoladaas baasaweyn kama harin khayr allaha siiyo waxay tiri marna hooda ayuu ceel la ka tag imeeno sanadka dambe 2023 dhalashadeedii haddana wax yaroo bilaaba u dhaxeeyay baan jeclahay bay ceel nagu soo celisay matag weyn bay geysay markay 190 marayeen bay biyo qabteen markii la damcay in la keysimo buu ceelka haddana dumay markuu dumay haddana waa ka guureen 10 mitir bay ka guureen markuu dhowr iyo 10 mitir marayay haddana meel bahololada ka dhacay ceelka saddexaad bay ayna balaabeen ceelka saddexaad alxamdulillah waa ku naajaxeen markay 180 marayeen biyay heleen ma sha Allah deegaanka iyo dhan baa ku farxay anagu waa la keysinay waa hagaajiyeen qoladii wakaalada waa hadashay waxa la yiri sidiisa ku keysima deegaanka muddo badan bayna ceel goobeena iyo waa soo rafaadnay 2 sano in soo dhabar adeegnay qolada hore 7 bilood bay joogtay qolada 9 bilood bay joogtay sida ku keysima la yiri ceelku marka biyo siyaada ah ma leh laakiin waa ceel biyihiisu kaafiyiin deegaanka iyo nawaaxigiisa waa kaafiyaan waana biyo ma garanaysaa la hubo waayo waxaan u leenahay biyo la hubo waa noo dhaansheen magaalada ay geeyeen booyadoodii waa noo shubeen gaari magaalada ahna waa ka dhaansheen oo masaajidka baraagtiisaan ku shubnay wixii oo manaayo kaleetana waa u shubnay biyahaas waa biyo najaxa weeye ilaah wadan beerka beerlay marka qoladaas la dhaho qolada wakaalada biyaha ma ilaawo karo abaal badan bay nagu leeyihiin hadeerna waxaan ka rabnaa sida u dhaqsiya badan insha Allah deegaanka way iska ooman oo baraag bay iska taal baraaguhuna way iska dhamaarayaan hadda dibiro nagu dhow waa ooman tahay muudiyo nagu dhow yana dhinac kale naga xigto waa ooman tahay waxaan jecelahay inay si dhaqso leh ceelkii noo xoolayaaneen oo noo keenan deynabadii iyo matoorkii iyo beebabkii waaskana noo dhisaanin saa waana mahadsantiina ceelkan taariikh badan buu soo maray insha Allah juhud badan buu soo maray ka wasaarad ahaan iyo ka dawlad ahaanba juhdiga iyo soo gashin waa mahad celeynaa sida u soo juhdi u soo galiyeen u soo dhabar adeegeen uga mahad celeynaa juhdigii waxa nooga dhiman ay soo galiyeen annagu u taaganahay biyihii waa la keesamay maxaa jiray waana ceelka waa la xiray laakiin biyihii ma hayno waa dul taaganahay inta hadda dul taagano fadhida saasa mar walba loo taagan yahay wadanka baahi baa ka jira biyo la'aanad baa ka jira kaliya waxa naga dhiman ceelkii birihii matoorkii iyo daynabadii baa ka dhiman iyo biyihii inta ka soo bixi lahayd najax intaas oo ahaan lahaa guushina intaas ka dhiman waxaan leenahay marka ka wasaarad ahaan iyo kan dawlad ahaanba war guushi intaas aynu ka dhiman waana dadaasheen khayr Allah insiiyo waxa weeye waynu mahad celeynaa laakiin dib mar haddaan guushi la gaar guushi waa biyo haddaan la gaarin oo la cabin dee barteeda bay taagan tahay inta waxaan ka codsanaynaa qabiyo ninkeeda dhameystira inaan intaas noo dhameystiraan baan rabnaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye aljantagi aanu lahayn waxa ka hadlay gudoomiyihii ceelka baa ka hadlay waxaanu ku daraynaa deegaanka odayaasha hadii aanu nahay waxaan ku daraynaa ceelkii waa najax waa sida la idin sheegay biyo nagu filan waa leeyahay waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda iyo maamulka waxaanu ka codsanaynaa in loo dejiyo deynabadii tuumbooyinkii matoorkii inta hadii aanu heli lahayn caadi baan uga cabi lahayn waxa weeye waxaan ka codsanaynaa inay sida ugu dhaqsaa badan noogu soo dejiyaan deegaanku waa ooman yahay muudiyo nagu dhow waa ooman yahay dibiri waa ooman tahay tan waa la iska garanayaa baraaga biyo ku jira oo baaburu ku jiro oo deegaamo badan ka cabayaan waa iska dareemaysaaniin biyo badan kuma jiraanin waxaanu ka codsanaynaa dawladda iyo wasaaradda iyo kulliba waxaan ka codsanaynaa in loo soo dejiyo sida ugu dhaqsaa badan bishaan gudaheeda dirac baajida waxa jira jiilaal baa iska imanaya xaaladdu waxa weeye deegaankii hore iyo geedii iyo barwaaqadii iyo bashbashti hadda waa soo gaagaabatay waxaanu jecelahay insha Allah sida ugu dhaqsaa badan inaanu ka helo wasaaradda qalabkii way aad ba mahadsantihiin inta daawanaysa inta maqlaysaba runtii maanta waxaan joognaa ceelkii hooda baan joognaa taariikhda ceelka waa laga soo hadlay oo waa laga sheekeeyay gudoomiyaha ceelka iyo gudoomiyaha tuulada iyo odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada kulliba maanta wax lagu dhan yahay halka ceelkan baa lagu dhan yahay runtii ceelkan taariikh badan ayuu lahaa taariikhdiisa waa laga warramay maanta wuxuu taagan yahay waa gabagabo kaliya waxa ka dhiman deynabadii iyo tuubooyinkii iyo in biyihii banaanka loo soo saaro dadka ay cabaan kaliya ayaa ka dhiman waxaan ka codsanaynaa wasaaradda iyo waxa weeye dawladda waxaan ka codsanaynaa in hawshii ay noo qabteen horta markii hore waa kaga mahad celinaynaa inay dhameystiraan sababtoo ah deegaanku waa deegaan ballaaran waxa ku nool dad xoolo dhaqataa ku nool
waxaa ku nool deegaano badan baa hoos yimaada sida deegaanada Mudiye, Hooda, Dibir iyo waxa weeye intaas waxa ka sii badan dadka xoolo dhaqatada ah midda kale waxa jira deegaano badan oo ay geed xar ka mid tahay intaas oo dhan ceelkaas ayaa loo jeedaa marka waxaan ka codsanaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba dawladda iyo wakaaladda waxa ka codsanaa in ceelkii wax yar ba maanta taagane inta yarta noo dhameystirto waxa weeye waan ku maasan tahay sida biyaha ay nagu soo saartay haddeerna waxa ka codsanaa in biyihii ay noo soo saarto qalabka ay noo keento waxa weeye Soomaaliya wax ka talada cimri taga ceeb lagu masuutiyo marka waxa ka codsanaa cod dheer iyo cod gaaban ba ku leenahay qalabka dhiman oo kaliya noo keena biyaha noo saar aad ba maasantiin Maxamed Cabdiraxmaan Saciid Waraymedia